madaxweyne Muuse Biixi hadduu wax noo dhisayo wadada isku xidhaysa loo yacadiyo saylax noo sii daayo horta madaxweynihii waan soo dhaweynayaa Daahir Kaahin waxaan ku soo dhaweynayaa bad waan u baahnay tolo waxa la arkay deynta xilka hayo waxba kama qaban Daahir yaala maanta lama oran karo talaabo halka ka qaaday ma jirto de 12 sano 13 sano maqnaa waxa jiray lacag hore oo la qaaday oo maca dumarka saqadleyda laga guray oo dumarka dahabkoogii laga guray oo tukaan walba oo boorama iyo cawashad walba laga guray lacag tiina dib loo xisaabtamo madaxweyne Daahir yaala waa madaxweyne nabadoonkay dimuqraadiyadda la sheegay ninkii kooyay aad baan soo dhaweynaynaa arinta ku baaqay dekada dawladdan waxaan ku suganahay bartamaha suuqa farsamagaalaha Boorama telefishinka Sky Cable TV ayaa waxa uu wax ka wadiiyay bulshada ku dhaqan magaalada Boorama sida u arkaan ballanqaadkii madaxweynaha hore Soomaaliland Daahir yaala Kaahin oo maanta ku ballan qaaday in la dhisayo dekada lagu hayaa oo in badan bulshada Boorama iyo guud ahaan bulshada gobolka Awdal ay ka dhursugayeen dhismaheeda dadweynaha ku wadiin artida ku aadan ballanqaadkii madaxweynaha hore ee dhismaha dekada lagu hayaa ay waxay kaga jawaabeen sida tan anigoo Maxamed Isaaqa Daahir yaala niniga yaqaan ma jiro waan wada shaqaynay isku arday baan ahayn hadalka uu yiri dekaduna waa run ninkii beeninayay isagay jirtaa anu waan ku kalsoonahay dadka xeebta u dhashayna aniga ka mid ah waa runtii wakaas Daahir wado anu waxaan u arkay iyo ololeeya saxabka ay tumo baan u arkay ilaa halka ilaa waxaan daba joognaa ilaa 8-nadii iyaan reerkaas daba joognaa waxa la wax faa'iido ku hayaani ma jiro xagga raggan waxa sheegaya Awdal State Bariha State ayana ama teedku waa soo kumayaan war inteena yaroo dhisnaa laynoo qaatay intaan saylaciya ku dhisi lugaya ku dhisaya halkan milyan waa shaxaad baa wakiil lagu qadinay daradeerkeena meesha xalla wax ka jira ma jiro madaxweyne waanu ka aqbalay meel baa calooshu naga xanuunaysa runta marka la sheego maalintii Daawid maana joogna gacantan taagi lahaa wadadii Djibouti iyo isku xidhaysayana Boorama ee la ballan qaaday wadadana hal noogu darabada waliba wadada ha horeyso marka meel la marayo wadada horeysa wadadana noo horeysi badda aad ma aragtay ku ballan qaadeenna waanu soo dhaweynaa reeyaalaana ku kama filayn warqad loo soo dhiibo 1 milyan kama filayn ku markaa madaxweyne Muuse Biixi hadduu wax noo dhisayo wadada isku xidhaysa loo yacadiyo saylax noo sii daayo oo saxiixiisu ku xidhan yahay sii daayo laakiin inka iyo ololeeyo bay tahay dadkaygana waxaan leeyahay in markasti been iyo mu'aamarad naloo sheego aqligeena in lagu ciyaaro maalin kasta ma oo leeyahay dekad baan dhisaynaa waxba inii qabanaynaa beentaasina markaa way soo gooshatay xadkeegii intaana waan ka dhareegnay 1 milyan waxaan leenahay madaxweynaha 1 milyan waxba noo qaban maaye u ceebi baan leeyahay tolkayna waxaan leeyahay ragna maqallafaato sideemihi disfaalooda isma raaca tawfiiqdu waa lama huraane oo miidaanka markaad haleeshaan midigu miishaama waa ninka kaliya ku dhiiraday inuu qabto shaqada wana fiican yahay wuu ku maadsan yahay soo galameys odunna wuu soo celinaya muusana kama socdo magaca bursu ku socda wuu ku dhiiri gelinaya sharaf iyo karaamay u tahay wuu hir gelinaya way gada bursiya ciisiga saaqto dhanba waa loo dhaxeeya innaga Boorama lagu dhisay ninka dhisay sharaf ku bixiye mugiyo miisaan buu ah ina bixiyeen markay sameysana waxba kama qaato ya soo galameys si fiican buu u wada ya aadna ugu maasay wuu gelinaya taariikhda gal ha noolaado wuu hir gelinaya waxaan halkan ka taageerayaa madaxweyne Daahir yaala Kaahin dekad talaabada dekada uu ka qaaday ee uu yiri degadeena waan dhisano contribution-na aanu ku sameysano aad iyo aad baan u taageeray shalayna waan taageeray haddana waan taageersanay dadkana waxaan jecelahay inay ku hididilaan oo talaabada uu Daahir yaala qaaday ay si fiican ay ku hididilaan oo dekadooda dhistaan Daahir yaala anu aragtay ka aaminsan waxa weeyaan odaygu isagoo aakhir lacab ku jira inuu deema taqaanaa waxa ay oo iska nasto maanta inuu ma taqaanaa ummadda wareeriyo oo dekad 25 milyan 125 milyan oo ku baxaya kaambiga ma taqaanaa dhismeegu inuu maanta 1 milyan oo jacdaday oo la soo baxo waayo waa nasiib darro ninkii masarka ugu sareeyay raa'udar ka taagna inuu maanta ninkii u shaka ka soo saaray madaxtooyada inuu maanta ma taqaanaaye uu ololeeyo oo kaambiin uu ka dhigo 1 milyan baan hayaa war 1 milyan adeer hal konteenarka la dhigayo dekada lagu sameeyo ma iibiso konteenarka ka qaadanta 1 milyan la sheegay aragtida aan ka qabo Daahir yaala Kaahin waa madaxweynihii hore ee Soomaaliland waana ninka mufikirka ah ee mustaqbalka Soomaaliland
dadku ay u malaynayaan inta badan Soomaaliland inuu Soomaaliland dhisay kamana dambeeyna la yiraahdo kamana horreyn marka madaxweyne haddaad maanta gobolkaaga timid wuxuu kaaga baahan yahay gobolku waxqabasho wuxuu kaaga baahan yahay waxqabasho mugle aad u weyn miisaan culus dadka iyo dadka baad isku keento marka haddaad tidhi maanta dekad baan samaynaya halka ree awdal bugta dadka kalena ay uga hadheen nin kastina uu ogyahay waana dekad haddaad ku dhawaaqdo dekadii saylac baan samaynaya boqolkiiba boqol waad mahadsan tahay allahna kula garab qabto waan soo dhaweynaynaa ta kale dekadaha marka laga hadlayo waxbarashada iyo dekadaha iyo kaabayaasha dhaqaaluhu waa wax isku wada xidhan intaasba gobolka in loo sii daayaan rabnaa waxa kaloon rabnaa in garoonkan yar ee halkan noqday mashruucii faanoole garoonka noqday reer Boorama in la furaysna waxa kaloon ku weydiinaynaa bal halka uu ku dambeeyay ama la arkay ama aan haybinayna ilaa hadda dariiqii loo oran jiray Djibouti baa laga keenay Boorama mariyo taas haday reewadeen ama baraanki isna wax ka jawaab oo ka hadal baan ku leenahay hordood maasanta wariye arinta aad weydiisay aad baa loogu faraxsan yahay madaxweyne Daahir Riyaale waa madaxweyne nabadoonkay dimuqraadiyadda la sheegay ninkii ku weey aad baan soo dhaweynaynaa arinta uu ku baaqay dekada mid baan ka oranayaa halka milyan oo dollar soo qaaday waxa loo baahan yahay sabraan inuu bixiyo 2 milyan oo kale dekadaasina dekad caalami noqoto anigu waxaan jeclaan lahaa in dekada lacagta loo dhibo DP World oo dekad caalami laga dhigo arinta Daahir Riyaale keen oo soo dhaweynaa isaguna waa madaxweynihii ugu daacadsan Soomaaliland wadaan raay ka hadlo waxaan u arkaa Daahir Riyaale inuu yahay rabana inuu masiirkii dadkiisa god ku rido shalay tole waxa la arkay deynta xilka hay waxba kama qaban Daahir Riyaale maanta lama oran karo talaabo halka ka qaaday ma jirto 12 sano 13 sano maqnaa waana nin la adeegsanayo waxaan ka aqbalaynaa ma maalinba wixii loo yeerin inaan iska qaadano deema waxa weeye anigu fikirka isaga ma weelo campaign oo doorashooyinka lagu galayo baan u arkaa ya oo naga sii horay adigu oo xisbiga kulmiya waa chance weeyaan waana kaga dhabeeyay ballanqaadkii marka waxa weeye soo dhaweynaa dadweynaha gobolka oo degmada Boorame waa chance in digada furo ya aad iyo aad baan soo dhaweynaa madaxweynuhu ku mahadsan yahay aad buu ugu mahadsan yahay aniga oo horta chance ka faa'iideysanaya madaxweynaha Daahir Riyaale waa madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland xurmad gaar igu leeyahay may faantay laakiinse arrinkani waxaan u malaynayaa waa arrin siyaasadaysan waxaan la hadlayaa madaxweynaha iminka hadda talada haya ee Muuse Bixi Axmed isaguna waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qiimo gaar igu leeyahay madaxweyne arrintaas ma siyaasad baad uga jeedaa shalay toolaba dhulkii badnaayee aad dhagaxa dhigtay wadada halkan ahayd ee Djibouti baan isku xirayaa lahayd habeenkii waa lagu tiraantiroodaa habeenkii waa lagu tiraantiroodaa midda kale xabashigii aad lahayd dikad baan siiyey iyada arrinkeyga halkuu ku dambeeyey haddii ayna siyaasad ahayn oo aanad campaign aanad ku doonayn arrintaa waanu soo dhaweynaynaa laakiinse haddii ay siyaasad tahay taariikhdu way isqortaaye ka fiirso nin mas'uul beenaalaha noqone ka fiirso baan kooran lahaa ka fiirso madaxweynaha Daahir Riyaale horta waxaan leeyahay sanku moodan oo noqon waxaad noqotay hal bacad lagu maalay waayo kaamaanu filayn anagu 8 sano sac ku tumay anigu taageeriyo udub baan anigu maanta kaama filayn dekad baan dhisay war wadadii Djibouti iyo gobol isku xidhay maxaad uga hadli wadada fur weeday intaad maanta leedahay 1 milyan baan wadaadada gobolka waranaysid iraado dekada Luqayaad baan dhisaya waxaan ay muwaadiniinta reer Luqayaad anagoo ku faraxsan inkastoo maalmo laabada la yimid laakiin aan ogolaanin laakiin Daahir Riyaale fikirkiisa waan ku raacsanahay waana jecelnahay inaan nolol dhiso dekedeeda waxaan leenahay Daahir Riyaale ha noolaado madaxweynihii hore Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin halkan hawl adag buu galay intii madaxweynaha ahaa hawl ka adag buu galay maanta hawsha uu galayna waa hawl aad iyo aad u wanaagsan waana ku taageersanahay madaxweynahaygii hore inuu hawsha Luqayaad soo hadal qaado oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi uu kala hadlo dabeetana Muuse Bixina waajibaadkii Daahir Riyaale uu lahaa uu fuliyo waanu ku raacsanahay dekadana waa la bilaabi Daahir Riyaalena waa lagu garab gali dekadana Daahir Riyaale waa kii yiri maxay hay'ada imika wuxuu yiri jeegii dawladda ka qaaday gacantan ku haya war wixii had haysaan Gadabuurso inaguna keena waa kii yiri intaasoo sano waxaad urunaysaan keena buur waxaan leenahay Gadabuursiga qurba jooga iyo Gadabuursiga ganacsadayaashana waxaan leeyahay war hadda dad islaamad tihiin waa nigi dekadu dhimanayeen war nin walba waxaaga ku soo darso kaale ka shaqeey madaxweynaha soo carrabaabay inuu dalka maaragtay dekad iyo maaragtay bilicda iyo airportba wax ka qabanayo run ahaantii haddii aan ka hadlo codkayga iyo rayahaantay aad baan ugu faraxsanahay aad baan u rabnay
madaxweynuhuna waxaan leenahay arrinkaad soo carrabaabtay ka dhabay madaxweyne maaha kaambeyn maanta maalintii kaambeynka maaha maalintii waxqabadkaa loo baahan yahay kaamaanu sugan 1 milyan oo 0.1 ka ah dekadda sayla dekadda waayo waxa lagu dhisayaa lacag 125 oo milyan oo dollar laakiin 0.1 ma waxaan qaahayna 1 milyan ayaa ka soo taagtay 1 milyan mana kaamaanu sugaynin kaamaanu dadka raacada lama yeelayaan waxaan leenahay boqolkiiba 50 oo boqolkiiba 40 madaxweynaha soo qaad boqolkiiba 40 ka soo qaad dadka raacada inta kala bixiyaan shaqada madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa wuxuu ka dhawaajiyay waxqabad dekadii Luqaya in la dhisayo horta waxqabad lama diido waxaa la yidhi kaadi badan waa loo golbadiyaa waxaanu ogeyn xisbiga kulmiye markuu madaxweyne Siiraanyo kambeynka ku jiray in uu dekada Luqaya iyo Saylac iyo wadada tagta Boorame ilaa Djibouti oo dhagax dhigay kambeynka uu ku galay ay soo hirgelin waxaanu ogeyn madaxweyne Muuse inuu isaguna lafteeda tabtii u maray balse haddana maantana waxqabad baa loo soo dhibay Rayaale oo warqad buu keenay diidi mayno waanu ka dhusuweynaa laakiin waxa uu taranu taasoo madaxweyne deel hirgelin waayo oo taa lagu soo dhibay dhamaystir waayo umba u taray hadday dhabtay waan soo dhaweyna welcome haddii ay hirgeli wadana tiiteedu bay noqonaysaa madaxweyne waa iska dhiiqadeeduna laakiin waxaanu soo dhaweynaynaa bal haddii maanta ay ballanqaadka la hirgeliyo haddaan ka hadlo fikirkayga madaxweyne Daahir Rayaale horta waa madaxweyne hore waddanka soo maamulay muddo dheer wuxuu inaga mudan yahay ixtiraam madaxweyne Daahir Rayaale waa madaxweyne sharaf inaga mudan waa madaxweyne gobol ka soo jeeda waxaanu ka digaynaa in waxyaabaha iyo xisbiga kulmiye inay ka dhigtaan campaign dekada Luqaya iyo airportka Boorame waqti dheer bi xidhay ilaa intaan garaadaysan Soomaaliland jirtaba maanu aragay uga shaqaynaya sidaa daraadeed mar walba xisbiga kulmiye oo xilkii ka sii dhow yahayna way dhagax dhigaan mar walba way dhagax dhigaan marka waxaanu ka digaynaa madaxweyne Daahir Rayaale ixtiraam buu inaga mudan yahay laakiin aflagaadayn mayno waxaan leenahay madaxweyne Daahir Rayaale ixtiraam baa naga moontayana dhiiqo lugaha lagu gelin Soomaaliland horta noolaato Soomaaliland hadalka Daahir Rayaale ka soo yeedana waan ku raacsanahay waan ku taageeranaa waxa weeye degada hanoo furo airport hanoo furo waana ku guulaysanayna waa iminka sheekada la isku wadiyo madaxweynaha Daahir Rayaale Kaahin waanu taageeraynaa waa ninkii macallin Sacdo soo xirigeliyay waa madaxweynahaygii aad iyo aad baan taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa qof kastoo waxqabad la yimaado inuu waxqabad la yimaanayna waan hubnaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa dekada Luqaya waan taageersanahay in dekada Luqaya loo dhiso oo aad loogu dhiso waxqabadkeega iyo waxtarkeega waa anfaci doonaan gobolka Awdal aad bay u anfacayaan hadii la helaado insha Allah waan ducaynaa Daahir Rayaale Kaahin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ninkii nabadda dalka dejiyo weeyaan Daahir Rayaale Kaahin ee gobolka Awdal ilaa Berbera ilaa Burco ilaa Hargeysa ilaa meel walba oo Soomaaliland ninkii nabadda keenay weeyaan waan ducaynaa Daahir Rayaale Kaahin Mustafa Caraale Sky Cable TV Boorame